waxaad ku garanaysaa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sida uu u weynayn jiray arrimaha deymaha iyo deynta wuxuu ahaan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ruuxa marka la keeno oo ay noqoto janaaso in lagu tukado ruuxa meydka ah salaatul janaaso in lagu tukado rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayhi intuusan ku tukanin wuxuu weydiin jiray deyn ma lagu leeyahay janaaza loo keenay waa meyd nabiga waxay ku yiraahdeen ku tuka rasuul ilaahay intuusan ku tukanin wuxuu yiri ma deyn ma lagu leeyahay haabay dhaheen wax deynta lagu gudo ma ka tagay xoolo deynta bixiye ma ka tagay haabay dhaheen waa ku tukaday nabigu sallallahu alayhi wasallam mid kala la keenay deyn ma lagu leeyahay ma waxba lagu ma laha waa ku tukaday nabigu sallallahu alayhi wasallam mid saddexaad baa la keenay war deyn ma lagu leeyahay haa waa lagu leeyahay wax deynta guda ma ka tagay maya kama tagin sallu ala saahibikum nabigu waa isaga tagay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa ka jeesaday kadibna saxaabadiisiiba wuxuu ku yiri ku tukada idinku waa ka laabtay nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ruuxa muslimka markuu geeriyoodo xuquuqda uu muslimiinta ku leeyahay waxa kamida in lagu tukado lana asturo ومع ذلك النبي صلوات ربي وسلام عليه وكجسدي كنت كشديس صحابته يدو كنت كذا صوت ما حي تهي دينتا او قبي او كدنتي wax gudana uu san ka tagin ba culays leh salaadii nabigana uu diiday صلوات ربي وسلام عليه iyo ducada uu ducayn la markale nabigeena صلوات ربي وسلام عليه nin ba u yimid wuxuu rasuulka ilaahay janaaza loo keenay waan dhila markuu damcay nabiga inuu ku tukado wuxuu yiri deyn ma lagu leeyahay ha baa leeyahay idinku ku tukado waa isaga tagay nin saxaabada kamid oo meesha jooga Abu Qataada la yiraahdo wuxuu rasuulka ilaahay ku tuko deyntiisi ana isaarantahay ana qaaday ana bixinay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ma aday ku saaran tahay oo xoolahaagay ku jirtaa oo meydkani bari buu ka yahay miya Abu Qataada hadalka si fiican u fahma saasa هابو رسولك إلهي أنا قاضي حولها كان كجوديا ميت كاسين شقكم الله نبي جوا كتو كذي صلوات ربي والسلام عليه مركو كتو كذي كذب مالين تلا عسي مالين كي حجي أيو نبي يقول لك كل ما أبو قتادة مال بيسجور يمادين وحكي أبو قتادة لبدي دينار ما حي سمايين نينك لبدي دينار بالقولها لبا دينار ذهب ayaa lagu laha war labadii diinaar maxay sameeyeen ka waran buu ku yiri ma guday buu ka wada ma bixis wuxuu rasuulka ilaahay oo shalay inuu ba geeriyooday yaani waqtiba kama soo wareeg shalay un bay ahay nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maalinkii xigay ayuu hadana la kulmay wuxuu ku yiri aba qataade labadii diinaar maxay sameeyeen wuxuu rasuulka ilaahay waan guday waa bixiyay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam hadda ayaa wuxuu yahay waqtiga jirkiisu qaboobay hadda ayaa meydka jirkiisii qaboobay buu rasuulku yiri salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi u fiirsada waa deyn la qaaday oo meydka laga kor qaaday oo cid xilkeeda qaaday damaanadeeda qaaday haddana xilligii damaanada la qaaday jirku ma qaboobin ilaa markii la bixiyay ba jirku qaboobay sidaas xadiidka nabigu faa'iideynaya salawaatu rabbi wa salaamu alayhi nin kala u yimid nabiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu rasuulka ilaahay oo bal ka waran hadii la dilo oo jid ilaahay la igu dilo jihad la igu dilo aniga oo sabraya niyadayduna fiican tahay oo ilaahay ajir ka sugayoon dan kale lahayn aakhira iyo ajir doonayo bas sii jeeda oo aan soo jeedin oo cararaynin laakiin cadawga ku sii jeeda hadii xaaladda la igu dilo dunuubtayda ilaahay ma dhaafaya nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ninkii inta markii loo sheegay waa jeesaday waa dhaqaaq rasuulku sallallahu alayhi wasallam waa u yeeray soo celiya buu ninkii waa la keenay wuxuu ku yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam hadalkaaga ku celi
su-aashaadii weydiisay dib igu soo celi waa ku soo celiyey markuu ku soo celiyey buu nabigu wuxuu ku yidhi sallallahu alayhi wasallam haa dembigaagoo dhan waa la dhaafayaa xaaladdaa haddii lagugu dilo daynta mooyaane jibriil baa hadda intaa ii sheegay buu shahiidka ilaahay dartii loo dilay sida xadiidka kale naska uu ku yahay dhibicda ugu horeyso dhiig oo jirkiisa ka soo baxda ayaa dunuubtiisoo dhan ilaahay ku masaxaya oo ku dhaafaya ilaa daynta mooyaane daynta iyadu way saarnaanaysaa haddii shahiidnimo ay dayntii fakin weyday ruuxii lagaga cafin waayo maa baaluka marka sidaas daraaddeed waxaa laga maarmaan ah dayntan la guranayo ee lagu ciyaarayo ee la luunsanayo ee la fududaysanayo arrin ilaahay agtiisa ku fudud ma ah haddii aad ka maamirkato daynta ka maaran haddaadan ka maarmi karinina mar walba waa inay walwal iyo walbahaar kugu hayso nabigeenna sallallahu alayhi wasallam waxyaaluhu ilaahay ka baryi jiray waxa ka mid ah oo ka magan geli jiray ilaahu waxaan magan kaaga ahay dayntu inay iga adkaato oo culays daymeed oonan bixin karayn inuu u fuulo ayaan ilaahu magan kaaga ahay buu nabigu dhihi jiray salawaatu rabbi wa salaamu calayh